السلام عليكم كسر وهذا ما أنت أيوه برنامج كيني قدر شو ونكسر قادر نو وحيابا حيسها بدن أدوك كدعة ما أنت وحنا كسر قادر دونا برنامج كينا كان قدر شو سف ضد اسكو عاتي وحيابا يقع عويبا كل شيء جيا إن دخسي كتير شن إلا باتن كيلو أهيلبه haddaad arrinkan samayso ilaahay idinkiis fid baad noqonaysaa wallahi yaad horey dhakadhaysaa waxaan ku sheegayaa haddaba kuwiina burburanow hilibku dhib buu noqday hal baan ku hayaayo maanta qadar shaweed ku daawan doontaan maanta sida fudud ee la isugu caateyn karo arinkoo aan ku hayo leh haddaad samaysaa allah adduunku waa lagu kala ordi rabaayo horaad ka ordaysaa weli waxaan kuu soo qaadan doonaa maanta la yaabka ciyaarahu qadar show iyana waxaan kusoo qaadan doonaa inkaarta lambarka toddobaad ee kooxda Manchester United lambarkaas waa lambar inkaaran kuwa iman doona xataa way ka cabsan doonaan bal haddaba barnaamijkeena qadar shuban hore u gudagali doonaayo waa yahay bal maanta qodobkeena ugu soo horeeyay waxaan soo qaadayaa qaybta iscaataynta war horta nin yahow hilibku wuxuu noqday wallahi wuxuu noqday wax cudur ah adduunku cudur buu ka noqday hilibku adduunku dadku dhan wada ordayaan wax le wax sameynaya wax isku day adduunku hilibku wuxuu noqday cudur berigii hore waxaan dhihi jirnay arkan waa qaliir argo waxaan u wada ordi jirnay cayilka in la wada cayla loo ordi jiray laakiin maanta waxa la ogaaday cayilka inuu yahay wax ugu daran ee dadku dhibaya dunida marka cayil waa la diiday nin yahow adduunku waa lagu kala ordi rabaa adduunku waa lagu kala ordi rabaa nin yahow hadhow orod baa laga rabaaye baabuurka iyo diyaaraduba in la waaya laga yaabay hadhow bid inaad dhahdaa laga rabay orado marka hilibku waa la isku nacay maanta cudur iyo xanuunba isaga wato cudur iyo xanuunba hilibkan un baa wata marka wax aan bay noqotay adduunyada qofka inuu raadiyo in uu ku raaxaysto noloshiisa inuu ku raaxaysto dharkiisa surwaalkan ku dhibaya dharkan aadan gashan karin fanaanada markaad kugu jirto cariirin kugu ah waxaas dhan waad dhamayn karaysaa laakiin waxaad u baahan tahay shaqo maxamed qadar wuxuu dhihi jiray shaqo diyaar uma tihid shaqo diyaar umahan kuwan shaqo diyaar u noqo shaqa diyaariga ah hadday shaqo kaa go-an tahay si fudud baad ku caatoobaysaa saaxiibkaygiiyow ee channelka ku xiran si fudud ayaad ku caatoobaysaa anigu hawshan waan soo galay hawshan PhD inaan ka wataan malaynayaaba ilaa iyo dhowr iyo 25 kiilo baan ku riday bil yar gudaheedba bil iyo waxoogaa baan ku ridayo wixii aan sameeyay baan kaaga sheekeynayaa wixii aan sameeyay sirtaas baan kuu sheegayaa maanta haddaad shuruudaha aan kuu sheegay ka soo baxdo ilaahay idinkiis fid baad noqonaysaayo horaad ka caatoobaysaayo lagula yaabay maxaa ku dhacay ninkan anigu maxaa la yiri mataqaana ninkan dhiikar maa ku dhacay mayka sakaro maa ku dhacay arsaan maa ku dhacay intan hawshan wadina habar xaliim waa qeylinays cunuga day indhihiisa fiiri dhiig la'aan iga hayso cunuga habar moogta hooyo waa hooye haddaad weynaato xataa weli ilma la agtida ka tahay marka yaan lagu sin intaad dadka guriga jooga la dagaalan walaasha iskala dagaal hooyada la dagaal xaajida la dagaal hadhow iyaga ka hor istaagi doon waxay ku dhihi doonaan arniyo saas yeelin yaaqay arniyo gaasa kugu dhacay yaaqay arniyo kan baa kugu dhacay yaaqay arniyo kana kugu dhacay yaaqay arwaa yareeraatay waxaasna haddaad dhagaysanayso wallahi shaqo marabtid marabta shaqo arrinkan samay shaqo haddaad diyaar u tahay arrinkan samay waxaan ku hayaa maanta arrimo yar وانا برنامج قرح بدن انا مسلم هدان ونهاي horta waan soonaayo bishii Ramadan waan naga soo dhamaatay Soomahan mar kalena waxaan soonaa Khamiis iyo Isniin baan soonaayo sunnada adigoo sunnada isku dadaalaya Khamiis Isniintan dhex gashanaya waxa jira barnaamij caan ah oo caalamku la isku caataysiyo waxa la yiraahdaa entertainment festival entertainment festival soonkii biyaha la cabayo weeyaan anagu muslim baan ahayn soon baan soo qaadanay waajib baan soo qaadanay walo hadda wadac lagu jiro qudhido hadda waan iska soomanahay marka soonka wuu ku caawinaya soonkaas muxuu yahay waa soon aad biyo cabaysa maalintii oo dhan badar macunaysa cunto dhan macunaysa isma arkaysaan biyo baad cabaysaa yood ka banaysaa biyo caadi baad cabaysaa oo cad ah lagama doonayo biyo sokor leh sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad cabto kafayga qaraarka ah oo aan sokorto lahayn ina waa lagu ogolaanaya inaad midaas samayso waa in markaa soonka kan haddaad bilowdo oo aad bil ama dhowr bilood iska dawado ama maalmo aad wado fid baad noqonaysaa soonkanu maalintii oo dhan wax lama cunayo biyahaas baad cabaysaa habeenkiina waxaad cunaysaa cunto yaroo fiicanoo laakiin aan ahayn cuntooyinka aan la ogolayn baa jira okay bal haddaba aan wax kaaga sheego faa'iidada soonka kanu faa'iidada soonkan uu leeyahay ee biyaha la cabaya maalintii oo dhan anu muslim baan nahay soonkii weyna waa soo dhamaatay 3 maalmood ma haysana soo maahan hadda kadib iska soon Khamiis iyo Isniin iska soon faa'iido bay ku tahayo waa sunnadii rasuulku maalintii labadaas maalmood soomi jiray sidoo kalena soonkan maalinlaahna waad wadaysaa ah biyo baad maalinta cabaysaa faa'iidada ugu weyn wuxuu yahay uu soonkan u leeyahay waxay tahay in
uu yaraanayo cuntadii aad maalintii qaadi lahayd kalorigii aad maalintii qaadi lahayd ama cuntooyinkii aad maalintii cun lahayd dhan baa kaa yaraanaya tusaale maalintii waxaad cunaysay 2 ilaa 3 jeer aad cunaysay haddii aad maanta dhan biyaad cabto oo habeenkii maqribkana waxoogaa aad cunto intii aad maanta cun lahayd in ka yar baad cunaysaa marka muhiimada koowaad uu leeyahay soonkan wuxuu yahay biyaha la cabayo ee la soonaanayo wuxuu yahay in aad maalintii oo dhan aad mataqaanaa biyo ku noolaato aan badar kale aad u dhawaan sidoo kalena hadda waa mid kamid ah soonka kan waxyaabaha adduunyadu hadda aadka loo isticmaalo annaga diinteena mar hore soonkan noo sheegtay faa'iidadiisa hadda bay qolyuhu gaaleed ku soo baraarugeen muhiimada soonka kan uu leeyahay soonka kanu marka waa soonka biyaha la cabo un kaliya waa mid kamid ah waxyaabaha hadda adduunyada ku ugu caafimaadka fiican waa leeyahay caafimaad baa laga leeyahay walina uu jirka lagu yareystaa dadka waxay ku yareeyaan soonka kanu jirkooda sidoo kalena maskaxdoodu ayaa ku horumarta oo maskaxdooda waxay sii gaartaa horumarin weyn bay sii sameysaayo maskaxdoodu u fiican yahay soonka kanu bay leeyihiin sidoo kalena nolosha qofka bini'aadamka inuu ku raaxaystana way sameyn u yeelaysaayo dharka aad ku raaxaysanaysayo waad isqurxinaysaayo adu dhanba waa kaayo dharka cariir kuguma noqonayaba maalintii oo dhan marka waxaa lagu ogol yahay biyahaas cadka ah iyo sidoo kale kofeyga ama shaahiga laakiin bilaa sokor ah marka waxyaabaad ka fogaanaysa waxa kamid ah marka intaas sooman tahay anigu waxyaabaha ifsaaciday waxa kamid ah soonka kanu ugu yaraan labadoo bil waan iska soonaayo biyahan caadiga baan cabay anigoo xataa shaqooyin galaya ciyaaro tabinaya haddana dhag jalaq ma siin jirino waxyaaba aan samayn jiraan ku sheegaya maalintii oo dhanba wax maan cunayno yacni biyo caadi baan cabay yaa marka habeenkii marka la gaarana shub iska dhigayn adigu waxa laga yaabaa nin la soo fasaxay iska dhigin oo maantana baahna hadhow bariiska iyo baasin isku dadashaa la diidaya lama ogolo waxa ka markii aad soonka maalinta samayso habeenkii waa laga diidaya inaad cunto yacni adigu shaqo ma u diyaar tahay haddaad shaqo u diyaartahay waxaa lagaa diidaya inaad cunto cuntooyinka kanu nin shaqo diyaar baad u tahay maanta dhanaan soonnaa haddana kuwaas yariiska ma cunaa malla waa lagaa diidaya war waxaas adduunka waa la cunaa hilib iyo qudaar baa la isku cunaa adduunka waa la shuquleeyaa adi shublen baa taagan ar soomaali maxamed bariis iyo baasuun baa taagnaanaysan adduunka waxa waa laga gudbay waa la iska dhaafay markaad maalinta dhan biyaad ku soonayd oo biyaad cabaysay habeenkii maqribka ma u dhawaanaysid cuntooyinka aan kuu sheegi doono bariis iska dhaaf baastana iska dhaaf canjeerana iska dhaaf oo burna iska dhaaf baasta iyo bariis waa wax dadka wareerinaya wax hawshaadii maanta aad soo waday dhab waxaas baa kaasii jibinaya ha cunin baasta ha u dhawaan oo bariis ha u dhawaan oo canjeera ha u dhawaanin waxa dhan rooti iyo waxyaabaha sambuuskii waxaas dhanna ha u dhawaan habeenkii marka la gaaro waxaad yeelaysaa khudaar yar iyo hilib baad isku cunaysaa ama waxaad kaloo samayn karaysaa khudaar yar iyo dooraad isku cunaysaa chicken ama waxaad yeelaysaa khudaar yar iyo khudaar waxaad isku cunaysaa maxaa la yidhahdaa toona baad isku cunaysaa intaa markaad isku cunto adigu mustakafi baad tahayba biyo caadi baad cabaysaayo biyo cad baad cabaysaa lagaamad waa lagaa diiday inaad cabto biyo sokor leh biyo sokorna ha u dhawaan hawshaadii maanta aad soo waday dhan bay kaa waxaynayaan anigu iska dhaaf hadda idinku war ani dooradaas iyo malaygaas iyo waxaas xataa waa iska diidayo war waxaan cunayay tufaax waa loo baahan yahay qayb ayuu ka yahay waxyaaba la ogolay in la cuno tufaaxun baa iska ruugay tufaax oo lagu daray hal habkoo toon ah anuma isku roonaanin يعني نفتي ذم أوروانا إنه نشقة وديار بانها هذا الشقة وديار تهاي مالنتي صون كصون بيه عدك اللي قصوا مايو هبين كنا بريس باستو عنجيرو وحسنا ودوانين هوش هذه ما أنت يسود ليان تعب يطير بيلك وقدع هذا سود ذلك سمانت ننبا أيه هتوحي لنا تصوت تعبتوا ماشي كبحيان ما أنت كحيت بالسفير ميزانك شوف وحبنا باك هذا عيا هبين كنا بيه واحد كعبي سبي عادي به مركز مخرج كو أنفرتو ilaa cishuhu markaad dukato kadib haddana soonkaad meesha kasii bilaabaysaa ilaa haddana maqribkeeda kalaad geynaysaa macquul ma ahan waxaas ma ahan wax macquula suurtagal weeyaan war lama dhimanayo yaan been lagu sheegin maamada iyo waa ku jecel waan ogahay xaajiida iyo asxaabta war waa dhimanaysaa war ninkan gaasuu ku guridayaa war nin waxaas waa been maalintii biyahaas caadiga cab habeenkiina ha u dhawaan bariiskii baastada canjeeradii muufooyinka iyo cabitaanada sokorta leh waxaas dhan ba u dhawaan biyo caadi cab biyaha qaybta biyo caadi cab sokor ha u dhawaan meesha cuntadan waxaad ka dhiganaysaa waxyaabo borotiin baad ka dhiganaysaayo ukuntoo kale waad iska cuni kartaa qaybta dhexe inkastoo ay xoogaa fitamiin badan tahay nin maantana baahna baad tahay waa iska cuni kartaa saddexdoo xabo ukun iska cun adiga hilib fara badan ma laga rabo xoogaa hilibkoo yar adiga ruuco yaa aad jag siisanaysaa kiilayaala lagaama rabo yaa kuwaas qudaarta ku cunaysaa naftu waa la sabayaa asagaad kala dhiganaysaa xoogaa ku anfuraysaa xoogaa kadibna cishaa taabanaysaa kadib soonka ku bilaabanaya marka hawshan marka aad wada maalintii dhan aad biyo cabayso haddaad ku darto xoogaa almintiyarna waa mustakafi weyn weeyaan haddaad almintiyar ku darto wallahi waa cimaamad weyn horey baad jaf kasii dhehaysaa jajabaysa adigu dhan ba meel hilibkii ka baxay baad waynaysaa almintiyarna ku dar maalinkii haddaad awoodi karta xirka boodka waa beelo haddaad xoogaa yar ruculayn karta waa beelo socdaad ku dari karta waa beelo marka waxaa waxyaabihii caawiyo
marka soonkan waa loo bogay maalintii soon saaxiibkeygiyow ama walaasheedii maalintii oo dhan haddaad soonto oo biyahaas unaad iska cabto khamiistan isniintana ku darso khamiis isniin markii la gaarana soonkii caadigaad soomaysahay sunnada ahaa ogowna miisaanna yeelo maalinta hawsha bilaabayso tiradaadu meesha ahayd ay ahayd bal fiiri kadibna toddobaadkii hal mar isaar ama toddobaadkii laba mar isaar oo bal fiiri saad u socon doonto wakay anigu sidaan baan ku noqday waad arkaysaan sidaan baan fit ugu noqdayo hawshan entertain fasting waa u bogayan ku entertain fasting soonka kan waan jeclahay anigu soonkana waan iska jeclahayba soonkan waan nolosheedu qayb ayuu ka yahay soonkan la iska maalintii la baahnaanayo cuntadeed maalintii cunlay saddexda waqtiga ka yaraanaya xoogaa yar bad u dhawaanaysaa marka haddaad shaqo rabto soonkaas hadaad samayso ood xeerkaasna u marto ood maalintii dhan biyahaas cabto oo aad waxaad ka fogo ku dha aadna ka fogaato sokorta iyo bariiska iyo baastada iyo canjeerada iyo muufada aad ka fogaato oo aad borotiinkaas cunto hilibka iyo doorada iyo tufaax iyo malaayig waxa dad cunto fid baad noqonaysaa iyo horaad ka ordaysaa war adduunka waa lagu kala ordi rabaayo intaa ku dhaafno weli barnaamijkeeni qadar show baan ku guda jirnaayo qaybta ciyaaruhu haddaan eedno inkaar buu lambarka toddobaad ka qabaa kooxda Manchester oo kuwa iman doona xataa way ka cabsoon doonaan in lambarka ay qaataan tani markuu Cristiano ka tagay Manchester United 2009 shan ciyaaryahan ayaa lambarka toddobaad soo xirtay laakiin dhammaantood hadda waa shan nin baa lambarkaas soo xirtay dhammaantoodna 15 gool bay ku dhaliyeen muddo 10 sano ah lambarkan muddo 10 sano ayaa Manchester lambarkan tobanaad laga xirnaa waxaana lagu dhaliyay kaliya goolal dhan 15 gool marka Ronaldo lambarkan isagu ugu roonaa Manchester United waxay ku dhibaatoon tahay inay hesho nin lambarka Ronaldo oo kala ku soo baxay yani lambarkii Ronaldo uu ka tagay cid ku soo baxdo gool badan ku dhalisa tani markuu Cristiano Ronaldo ka tagay kooxdan Manchester 2009kii 15 gool baa lambarkan lagu dhaliyay Owen ayaa 5 gool ku dhaliyay Depay 4 gool buu ku dhaliyay Antonio Valencia qaatay hal buu ku dhaliyay Angel Di Maria qaatay laba ku dhaliyay Sanchez baa qaatay 3 gool buu ku dhaliyay marka lambarkan waa lagu dhibtoodayo lambarkan waxa hore u soo xirtay legendii weyn sida Eric Cantona iyo David Beckham marka lambar dhan ee muddo 10 sano la watay ee kaliya lagu dhaliyay 15 gool inkaar weyn baa ka haystaa lambarka Manchester oo hadda Sanchez inuu baxa laga yaabaa cidda lambarkaas xira doonto uu baa la sugayaa inkaar lambarka Manchester waa ka inkaaran yahay sida Chelsea ugu inkaaran yahay lambarka 9aad oo ciyaartooygu ay ugu kala cabsadaan ugu kala ordaan Valencia hadda koor loo dhiibay aniga maraba kan buu lambar 25 buu ka doortay markii dambe